gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Maroodijeex Wali Axmed Jaamac ayaa ka hadlay waqtiga kala guurka ee dalka uu galay in la ilaaliyo hantida ummadda isagoo fariin u diray hay'adaha ay shaqadoodu tahay inay ilaaliyaan hantida ummadda. mawduucan isugu yeernay saxaafadda waxa weeyaan ka gobol Maroodijeex ahaan hadal maalin dhaweyd ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Maroodijeex oo aanu malaynayo waliba si aanu isagoo shaqada ka daacada aanu u tagin balse qaylo ku soo dhacday awgeed uu ku tagay buurta in halkan la yiraahdo Naasa Hablood wuxuu noo sheegay gudoomiyuhu war dhanna dhila ka ah dhanna farxad ka ah oo mar hadii uu gartayba inuu hantida ummadda la boobayo isaga horta lagu mahad celinaynaa dhanna kala dhilaabe ka ahayd oo in gudoomiye gobolaha og xilliga kala guurka og dhibaatooyinka dawladda hoose ku hayso xasaabada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dantii guud maqan tahay og musuqmaasuqa iyo hagardaamada ka jirta gobolkii uu xukumayo gaar ahaan caasimadii og laamiyada iyo wadooyinka sida u baabeen og arxan darrada dawladda hoose iyo xashiishka dhex yaala caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa oo muddo qashin qub isagoo intaaba og oo ahayd mar hore inuu shaqadiisa qabsado haddana aakhir lacibkii inuu maanta inuu yiraahdo buurtii Naasa Hablood baa la boobayo inuu joojin waa ayaan darro dhanna waaba nooga mahad celinaynaa waxaan leenahay kol hadaad qirtayba in buu jiro waad ku mahadsantay waxaan doonaynaa ka xisbi gobol ahaan wadani ahaan mucaarad ahaan inaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Kenya Muuse Biixi Cabdi aanu u sheegno oo nu leenahay cimri tagay ceeb lagu soo ha noqonina kudkii kaba loo talay waqtigiina uu dhamaaday wixii aad falayseenna waad fasheen kulli hadaad amaan lahaydeen Ilaahay baa la hortageysaan hadaad ceeb lahaydeenna cadaabad tageysaan ama Ilaahay baa la hortageysaan oo idiga xisaabin doona insha Allah walaalayaal waxaan doonayaa inaan idigu baraarujiyo codsiyaan halkan uga dirayno kow hawlaha guud wasaaradda hawlaha guud oo nu leenahay xilliyada kala guurka waxa dhaca oo caado inoo ah hanti ummadeed oo loo bedesho hanti gaar ah amba dhul ha ahaato bagaadid ha ahaato amba lacag akawna ku jirta ha ahaato mood iyo noolkay doonta ha ahaato waxa dhacda in hanti ummaddu leedahay loo bedesho hanti gaar loo leeyahay iyadoo laga faa'iideysanayo xilliga kala guurka waxaan u soo jeedinaynaa hawlaha guud hawshooda inay qabsadaan ay ummadda uga wakiilka yihiin kitaabkana uu maray ninka wasiirkii ee loogu dhaariyay inuu dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa daacad u noqdo waxaan u soo jeedinaynaa imika wararka aanu hayno ka xisbi ahaan in soo gaaraya hawshaasi waxa ku socotaa xawli waxaanu doonaynaa sida gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ee xukuumadda kulmiye uu sheegay uu isagu nooga marxaati yahay in hawshaasi xawli ku socoto qayla dhaantana isagu kow nooga aha annaguna kulli aanu ku daba taaganahay in hawshaas sideeda loo fuliyo oo la qabto oo laga hortago oo wixii imika inta daayacana la soo qabto sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay saacad ay wakaaladda biyuhu soo saartay inay dadku iibsadaan iyo dib u soo sharaxida Maayir Solteko waxaanu yidhi hadna gaar ah uga dirayaa shacabka ku dhaqan degmada Lixyaala ee degmada Koodbuur oo maalin dhaweyd si fiican oo dadnimo leh oo diin leh oo dareen leh uga dareen celiyay arrinkii aanu ka hadalay ee ahaa saacadaha biyaha ee dulmiga ah ee xaaraanta ah ee dadka manaxayaasha la doonayay in lagu qanimadeeyo arrintaas aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa Soomaalidana waxa tiraahdaa mabalushe maxaan leefaa umadaan biyo haysan hadaad haddana tiraa saacad baan ka iibinaya bal adigu waxaad ka warantaa caruur inta ooman tahay dhaan sugaysay oo dabeetana dhaankii ay sugaysay inta haamo maran loo keenay lagu waliba haamahana waa la idinka iibinaya Soomaalidu waxa tiraahdaa ni weyni wadkii waa yaqaan bay tiraahdaa reer Hargeysa waxaan u malaynayaa Soltelko waxa uu yahay anoo fasili maayo waayo way garanayaan daanyeer ayaa waraaba ku yiri waniyo daanyeero waa xilli kaleelay maxaad naaxday buu daanyeerka markaa dabadiisa casayd buu arkay oo geed buu daanyeer ku saaray markaas uu tintayda iyo tagooggayga ka aragtaa buu ee iguma tigaalteen
markaas solteelka waxa uu qabtay waxa inoogu filan caasimadda maayarka ahaa qashin qub noqotay marka hadda inaan mar kale haddana doorano damiirkeena inuu caayna maya Somaliland shacabka ku dhaqan jamhuuriyadda Somaliland caasimadda Hargeysa 75% waa educators waa dhalinyar doqoma maaha mana dareen la waxna weydiidaan waxna way qaataan waxaan qabaa solteelko musharaxnimadiisa ilaahay intii markii hore xaaraanta ku soo galiyay baa laga saarayaa dadkii lahaaba loo celinaya anigu saasaan Axmed Ismaaciil Cabdi telefishinka caalamiga ee RTN Hargeysa